bal qiyaas nin ay baadigoobayso dowladdii ugu awoodda badnayd dunida wakhtigaasi, khaliifkii dhulka bari iyo dhulka galbeed xukumayey ayaa amar ku bixiyey in la soo qabto isagoo nool ama isagoo dhintay. Ninkani ma ahayn nin gacanku dhigla ah, mana ahayn nin tuug ah, mana ahayn nin afgembi siyaasadeed waday. Waxa uu ahaa nin dhar duugoobay xiran, jeebkiisana uu maran yahay, laakiin qalbigiisa uu ka buuxo cilmi aan la qiyaasi karin. Waa ninkii loo bixiyey amiirulmu'miniin filxadiis, amiirkii mu'miniinta ee xadiiska. Waa nin diiday maamulka, nin diiday lacagta, nin diiday mansabka, kana doortay nolol carar iyo dhuumasho ah si uu u badbaadsado diintiisa. Soo dhowaada saaxiibayaal, aniga waxaan ahay Abshir Casaawe, halkanna waa Casaawe Media. Maanta waxaan gelaynaa safar taariikhi ah, waxaana dib u raacaynaa raadkii Sufyaan ibnu Saciid ath-Thawri, laga soo bilaabo dhalashadiisii Kuufa ilaa geeridiisii qarsoodiga ahayd ee Basra. Qisadeenna waxay bilaabanaysaa sanadkii 97 ee Hijriga. Goobtu waa magaalada Kuufa ee dalka Ciraaq. Guri ka mid ah guryaha magaaladaas waxaa ku dhashay wiil loo bixiyey Sufyaan. Aabbihiisa Saciid waxa uu ahaa nin cilmi leh oo xitaa laga soo guuriyey xadiisyo ku jira Saxiixul Bukhaari iyo Muslimka. Laakiin geesiga dhabta ah ee dhisay nolosha Sufyaan ath-Thawri ma ahayn aabbihiis oo keliya, ee waxay ahayd hooyadiis. Sufyaan waxa uu ku soo koray guri faqiir ah. Markii uu yaraa, hooyadiis waxa uu sheegay inuu rabo inuu barto cilmiga, laakiin uusan haysan lacag uu ku iibsado qalin iyo warqad ama uu ugu safro culimada. Hooyadiis oo ahayd haweeney aqli badan, waxa ay tiri hadal ilaa iyo maanta taariikhda lagu qoro. Waxayna tiri, wiilkaygiiyow, adiga cilmiga baro, anigana dunida ayaan kugu shaqaynayaa. Waxaan soo miiqayaa suufka, lacagta aan ka helana adiga ayaan kugu taageerayaa. Hooyadiis kuma ekaan inay lacag siiso oo keliya, waxay siin jirtay waana ka qaalisan dahabka. Maalin ayay u yeertay Sufyaan oo waxay ku tiri, wiilkaygiiyow, haddii aad qorto 10 xaraf ama 10 xadiis, fiiri naftaada haddaysan kuu soo kordhin deganaan, sharaf iyo alla ka cabsi. Marka iska daa cilmiga, waayo dhibaato mooyaane wax kale kuuma soo kordhinayo. Waanadaasi waxay noqotay seeska nolosha Sufyaan, wuxuuna bartay in cilmiga uusan ahayn xog la ururiyo oo keliya, balse uu yahay dhaqan lala noolaado. Sufyaan waxa uu bilaabay inuu cilmiga ka qaato culimmadii Kuufa, wuxuuna aad ugu dheereeyey xadiiska. Waxaana la sheegaa in uu yidhi, wixii aan dhegahayga geliyey oo aan maqlay, marnaba qalbigayga ima ilowsiin. Sufyaan kuma ekaan oo keliya Kuufa, ee waxa uu u safray xarumihii cilmiga ee Islaamka, wuxuuna tegey Makka, Madiina iyo sidoo kale Yemen. Waxa uu la kulmay in ka badan 600 oo shiikh, wuxuuna noqday badweyn cilmi ah. Markii uu fadhiisto si uu xadiiska u sheego, waxaa hareerihiisa soo fadhiisan jiray kumanaan arday ah. Culimmadii wakhtigaasi noolaa waxay isku raaceen hal shay, taasi oo ah Sufyaan inuu yahay amiirka mu'miniinta ee xadiiska. Imaam Shucba oo isna ahaa buur cilmi ah ayaa yidhi, Sufyaan ath-Thawri waa hoggaamiyahayga. Laakiin Sufyaan ath-Thawri muxuu kaga duwanaa culimmadii kale? Farqiga waxa uu ahaa alla ka cabsiga xaddaafka ah iyo adduunya nacaybka. Waxaa la sheegaa in habeenkii uu soo toosi jiray isagoo ooyaya oona leh, naarta, qofka xasuusta naarta hurdo uma soo degayso. Mararka qaarna waxa uu ka ooyi jiray cabsida Alle ilaa ay dadka u maleeyaan inuu dhiig ooyayo. Waxa uu ahaa nin aan aqbalin hadiyadaha madaxda, wuxuuna odhan jiray, haddii aan ogahay inay tahay xoolo xalaal ah ma qaateen, sababtoo waxaan diidayaa inaan u mahad celiyo qof aan Alle ahayn, iska daaya inay tahay xoolo shubahaad ah. Hadda waxaan soo gaarnay barta ay sheekadu iska beddelayso. Waa xilligii khilaafada Abu Jacfar al-Mansuur. Al-Mansuur waxa uu ahaa khaliif aad u awood badan, adag oo aan dulqaad lahayn, wuxuuna rabay in culimmada waaweyn ay ka shaqeeyaan dowladdiisa si ay sharciyad ugu yeelaan xukunkiisa. Waxa uu u yeeray Sufyaan ath-Thawri, wuxuuna ku yidhi, Sufyaanow, waxaan rabaa inaad qaadi iga noqoto magaalada Kuufa. Sufyaan waxa uu ogaa in haddii uu noqdo qaadi, lagu qasbi doono xukunka uu rabo khaliifka ee uusan xukumi doonin cadaaladda Alle.
Sufyaan waxa uu yidhi, aniga iguma soo baxayo xilkaas ee iga dhaaf. Qaliifkiina wuu ka diiday, wuxuuna ku yidhi, waa inaad qabataa, haddii kale cawaaqib xumo ayaad la kulmi doontaa. Sufyaan isagoo isticmaalaya xigmad, waxa uu iska dhigay qof aan caqli ahaan fadhin si uu uga baxsado, laakiin markii dambe waxa uu baxsaday habeenbarkii. Almansuur aad ayuu u carooday, wuxuuna amray in meel kasta oo Sufyaan lagu arko la soo qabto oona la deldelo. Sufyaan waxa uu noqday qaxooti dalkiisa jooga, wuxuuna u cararay magaalada Maka. Sufyaan waxa uu galay magaalada Maka isagoona magangalay Kacbada, laakiin Almansuur waxa uu maqlay in Sufyaan uu joogo magaalada Maka. Sanadkii 158 ee Hijriga, Almansuur waxa uu go'aansaday inuu aado xajka. Ujeeddadiisa labaadna waxay ahayd inuu soo qabto Sufyaan oo halkaas uu ku dilo. Dadkiina waxay u yimaadeen Sufyaan, waxayna ku yidhaahdeen, Sufyaan oo carar, Almansuur uu soo socdaa, wuxuuna ku dhaartay inuu ku dilayo. Sufyaan waxa uu taagnaa Kacbada agteeda, wuxuuna dareemay culays, wuxuuna qabsaday marada Kacbada, wuxuuna sameeyey dhaar ka weyn tii boqorka. Wuxuuna yidhi, Ilaahow waxaan ku dhaartay inuusan Abu Jacfar soo gelin magaalada Maka anigoo nool. Dadkii way naxeen. Ciidankii Almansuur waxay soo gaareen xuduudka magaalada Maka. Almansuurna waxa uu diyaar u ahaa inuu soo galo, laakiin awooddii Alle ayaa timid. Isla goobtii, Almansuur waxaa ku dhacay xanuun degdeg ah, wuxuuna ku dhintay albaabka Maka isagoo aan soo gelin. Sufyaan ma uusan ku farxin dhimashada qof Muslim ah, laakiin waxa uu arkay in Alle uu ka badbaadiyey daalim. Kadib dhimashadii Almansuur, waxaa xukun ka qabtay wiilkiisii Almahdi. Almahdi laftiisa waxa uu raadinayey Sufyaan, sababtoo ah Sufyaan waxa uu ahaa in aan runta ka gaban. Sufyaanna waxa uu u cararay magaalada Basra. Qisadan soo socota waxay muujinaysaa heerka uu gaarsiisnaa suhdiga Sufyaan. Markii uu Basra tegey, cidna kama uusan aqoon, waxa uu shaqo ka raadsaday nin beertimireed lahaa. Sufyaanna waxaa laga dhigay waardiyaha beertaas ilaaliya. Muddo 6 bilood ah ayuu beertaas ilaalinayey. Maalin maalmaha ka mid ah, ninkii beerta lahaa ayaa u yimid, wuxuuna ku yidhi, war nin yahow, waxaad ii keentaa timirta nooca ugu macaan. Sufyaanna waxa uu keenay timir iska caadi ah. Ninkiina waxa uu ku yidhi, waxaan ku yidhi, waxaad ii keentaa timirta midda ugu macaan, miyaadan kala aqoon timirta midda macaan iyo midda qaraar? Sufyaanna waxa uu ku yidhi, maya, ma kala garanayo. Ninkiina wuu yaabay, wuxuuna ku yidhi, 6 bilood ayaad joogtaa beerta, sidee baad ku kala garanayn timirta midda macaan iyo midda qaraar? Sufyaanna waxa uu ku yidhi, sababtoo ah marnaba ma aanan dhadhamin, waayo waardiye ayaad igaga dhigtay beerta ee igumaadan dhihin cun. Ninkii beerta lahaa waxa uu u qaatay in ninkani uu yahay doqon ama nin waalan, wuxuuna ku yidhi, waxaad iska dhigaysaa ninkaas war badan ee Sufyaan as-Sawri oo kale. Ninkii beerta lahaa ma ogeyn in ninkan hortaagan uu yahay Sufyaan laftiisa. Markii dambe, dadkii magaalada ayaa gartay in ninka beerta jooga uu yahay Sufyaan as-Sawri. Markii ninkii beerta lahaa uu ogaaday, wuu naxay, wuxuuna isku dayey inuu raaligeliyo, laakiin Sufyaan mar hore ayuu baxay si uusan u noqon qof la maamuuso. Inta aanan gaarin dhammaadka noloshiisa, aan yara hakanno oo aan dhegaysanno ereyadiisii dahabiga ahaa, ereyadaas oo ilaa iyo maanta daawo u ah qalbiyada. Sufyaan waxa uu yidhi, 3 waxyaabood ayaa sabarka ka mid ah: inaad qariso dhibka ku gaaray, iyo inaad qariso cibaadadaada, iyo inaad qariso faqrigaaga si ay dadka ugu maleeyaan inaad hodan tahay. Waxa uu yidhi, haddii aad aragto nin culimo ah oo albaabka madaxda taagan, ogow inuu yahay tuug diinta ku shaqaysta. Waxa uu yidhi, iska jir inay dadka kugu ammaanaan wax aadan ahayn, adigana aad og tahay naftaada waxa ay tahay. Sanadkii 161 ee Hijriga, magaalada Basra ayuu ku xanuunsaday Sufyaan as-Sawri. Xanuunkii geerida ayaa helay isagoo weli dhuumasho ku jira. Daqiiqadihiisii ugu dambeeyey waxa uu dareemay cabsi aad u weyn. Nin saaxiibadiis ka mid ayaa ku yidhi, Sufyaanow, ma dembigaaga ayaad la ooyeysaa? Alle dembigaaga agtiisa waxa uu kaga fudud yahay qashinka dhulka yaala oo kale, ee yeela rajo wanaagsan.
Sufyaan waxa uu ku dardaarmay in maradiisa iyo wixii yaraa ee u haray loo sadaqeeyo. Ugu dambayntiina naftiisii barakaysnayd waxay ka baxday jidhkiisii dhuubnaa ee daalay. Markii la aasay, dad badan ayaa riyo ku arkay Sufyaan. Mid ka mid a saaxiibadiis ayaa ku riyooday Sufyaan oo jooga jannada, baalal leh oona duulaya geedaha jannada dhexdooda, isagoona akhrinaya aayadaha Qur'aanka. Sufyaan as-Sawri waxa uu dhintay isagoo qariib ah, isagoo la raadinayo iyo isagoo faqiir ah. Laakiin maanta boqoradii raadinayay magacooda lama xuso ilaa xumaan mooyaane. Halka Sufyaan magaciisa markii la soo hadal qaado aan dhahno raximahullah. Qisada Sufyaan waxayna baraysaa in cizada iyo sharafta ay ku jirto diinta iyo toosnaanta, aysan ku jirin lacagta iyo u dhowaanshaha madaxda. Fadlan daawade, haddii aad ka heshay qisadan quruxda badan, qaybta kommentiga noogu reeb fariintaada. Haddii aad nagu cusub tahayna, nagu soo biir oo subscribe saar channelka. Haddii aad hore noogu xirnaydna, muuqaalka leegdhe, siina sheer garee si ay u gaaraan saaxiibo badan oo adigoo kala ah oo qisooyinka jecel.